salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiya media qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warka warbaahiya media waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo rasuul wasaare Kheyre oo ka dhoofay maanta magaalada Muqdisho rasuul wasaare Abi oo xalinaya khilaafaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Axmed Madowe oo Boqdey Suuqa Kalunka ee magaalada Kismaayo dowlad goboleedka Puntland oo magacawday guddi ka kooban 14 xubnood iyo Kim Jong Un oo laayay mas'uuliyiintii u qaabilsanay wadahadalka Mareykanka markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan halka aad warkan ka daawaneysana oo warbaahiya media fadlan subscribe saar channelka warbaahiya media rasuul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta galinkii hore ka dhoofay magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda wafdiga uu hogaaminayo rasuul wasaaraha magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar rasuul wasaare Kheyre ayaa la filayaa in marka uu gaaro dalka Qatar inuu kulamo la qaato madaxda dalkaasi waxaana kala hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii Qatar u kordhin lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya rasuul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale la filayaa in madaxda dalka Qatar uu kala hadlo sidii loo bilaabi lahaa mashaariic kala duwan ay hore dalka Qatar u shaacisay inay ka fulinayso Soomaaliya rasuul wasaare Kheyre ayaa sanadkii hore dhagax dhigay dhismaha laamiga isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooy oo ay dhisayso dowladda wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed iyo muranka xilligan ka dhex aloolsan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo labaduba daris la ah dalka Itoobiya waxa uu sheegay rasuul wasaaraha dalka Itoobiya inuu dadaal badan ku bixin doono xalinta xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa uu xusay in waajibka saaran uu yahay xalinta labada dal khilaafaadka u dhaxeeya Abiy Ahmed ayaa tilmaamay haddii aan xal loo helin xiisadda Soomaaliya iyo Kenya inay saameyn ku yeelan doonto dowladdiisa waxa uu sheegay inay muhiim u tahay in arrinta la xaliyo si aysan saameyn u yeelan xukuumaddiisa rasuul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay sidoo loo xalin lahaa xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya uu kala kaashan doono wadamada Eritrea iyo Koonfurta Suudaan Abiy Ahmed ayaa hore ugu guuleystay inuu kulansiiyo madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya markii labada wadan safaaradaha kala qaateen waxa uu hadda markale doonaya Abiy inuu xalliyo khilaafaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka Kenya madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madowe ayaa Boqdey Suuqa Kalunka ee magaalada Kismaayo madaxweynaha ayaa kaluun markaas laga soo bixiyay badda oo la keenay suuqa kalunka oo dhinaca ku haya xeebta Calanley oo soo iibsaday isagoo sidoo kalena halkaas xaaladaha ay ku shaqeeyaan ugu guurgalay ganacsatada suuqaasi ka shaqeeya madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in qalabka ay ku shaqeystaan ay u isticmaalaan soo qabashada kalluunka mar walba ay diyaar u la tahay dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidii xirfadahooda loo sii horumarin lahaa ganacsatada suuqa kalluunka ayaa madaxweynaha uga mahadcelinayay sida ahmiyadda gaarka uu siinayo wax soo saarka badda iyadoo madaxweynuhu uu sheegay in maalin ka mid ah toddobaadkii suuqyada aan lagu iibin doonin hilibka xoolaha sidii dadka loogu dhiirigeliyo cunista kalluunka madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha roobabka ayaa loo xil saaray inay soo qiimeeyaan isla markaasna warbixino ka soo diyaariyaan baaxadda waxyeelo ee fatahaadaha roobka ayna wax ka qabtaan waxyeelada uu geystay daadadku dadka xoolaha wadooyinka deegaanka iyo saameynta ay ku reebeen roobabkii ka da'ay guud ahaan deegaanada Puntland sidoo kale guddiga gurmadka fatahaadaha roobabka ayaa ka kooban wasaarado hay'ado dawliya gudoomiyaal gobol iyo taliska ciidanka booliska Puntland waxayna leeyihiin gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn guddiga ayaa kala ah wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiye wasaaradda howlaha guud gudoomiye ku-xigeen wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha xubin wasaaradda maaliyadda xubin wasaaradda ganacsiga xubin wasaaradda xanaanada xoolaha xubin wasaaradda deegaanka xubin wasaaradda caafimaadka xubin wasaaradda qorsheynta xubin madaxtooyada xubin taliska ciidanka xubin hay'adda hadma xogayn hay'adda BJ xubin gudoomiyaasha gobolada xubin ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa ku wargeliyay cid kasta oo heshaan qusayso inay kala shaqeeyaan guddiga isla markaasna ay u fududiyaan wixii howl ah ay u baahdaan si ay ugu fududaato hawshii loo idmaday amiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo laayay inta badan kooxdii qaabilsanaa wadahadaladii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi
wakiilkii gaarka ahaa ee waqooyiga Kuuriya u qaabilsanaa wadahadalladii Kim iyo Trump ee ka dhacay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam 28 February 2019 ayaa ka mid ah dadka la dilay. ninka la dilay oo lagu magacaabo Kim Yong Chol ayaa ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga xisbiga shaqaalaha uu hogaamiyo Kim Jong Un sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Sidoo kale waxaa la toogtay 4 mas'uul oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waqooyiga Kuuriya. Mas'uuliyiinta la laayay ayaa lagu eedeeyay inay basaaseen dalka Mareykanka xog muhiim u ah madaxweyne Kim, isla markaana sabab ay u hayeen fashalkii ku yimid shirkii Kim iyo Trump ee dalka Vietnam. waxaa sidoo kale xabsiga la dhigay ku dhawaad 10 ruux oo ka mid yahay turjubaankii Kim xilligii wadaxaajoodka lagu eedeeyay inay ka wada shaqeeyeen ay la yeesheen ragga la dilay, waxaana laga cabsi qabaa in iyana la laayo. ku maadsantahay daawashada warkayga, fadlan subscribe channelka Warbaahiye Media.